waxaan salaamayaa shirgudoonka mudane gudoomiye mudanayaasha waxaan salaamayaa walaalaha shaqaalaha sharfan ee golaheena waxaan salaamayaa saxaafadda iyaduna sharfan laakiin hadalka mudanayaasha oo ku yara darta say maaragtay looga iibsado ama wax ka yara dhinta waxaan kulley waxaan u malaynayaa waa la hadlay anu xoogaa ma berberin doonaa qodobada maadna oonu soo jeedinayo walaaladaydii guddida ahaa ee loo xil saaray inay xoroosaadka ay noo soo habeeyaan shaqo qurux badan oo weyn soo qabtay iyagana maadna gaara ayaan u jeedinayaa qodobadaan ka hadlaya waxa weeye qodobka tobnaad 14aad 16aad 26aad 30aad qodobka 74aad 16aad iyo 26 unba waxoogaa dib u ardi doonaa soo jeedinna waa ku dari doonaa qodobka 7aad waxaa ku xisan xafiisyo sida xafiiska miisaaniyadda iyo xafiiska xisaab xidhka xafiiska miisaaniyadda iyo xafiiska xisaab xidhka waxaad moodaa in la minimaiskareeyey golaheenan isagoo ah golaha la xisaabtanka golayaasha qaranka miisaaniyadda golaha ayaa laga bilaabayaa waxa weeyaan haddaynu garan weyno miisaaniyadda iyo qarashaadkeenna oo halkaa hoose aynu iminka hawyaallo la dhigo waxa weeyaan far ayaa ku godnaanaysa waxaan doonayaa si wax walba u caddaadaan sida guddoomiyuhu usoo magacaabayo xogayaha guud amba u magacaabo in loo soo magacaabo oo qodobka 16aad guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsigu ay soo magacaabaan xisaabiye guud oo madax bannaan oon lacag arag laakiin xisaabiya qarashaadka ay bixinayaan xubnaha u igman ee shaqaalaha ah xisaabiya oo warbixinina siiya si aynu inagu warbixintaasi hay noqoto warbixin sugan oo inuu ogaano miisaaniyaddeena iyo qarashaadkeenu sidoo u baxo oo ay noqoto mid furfuran oo aynu garan karno maaragtay mar walba si aynu la xisaabtaynu rabno sidaynu u ogaanayno maaragtay institutionada kale ee qaranka ee waaweyn wasaaradaha taasi waan soo jeedinayaa weliba waxaan ka dhigayaa ani soo jeedinteydaasi waan ta'kiidinaya in la helo xisaabiye guud oo khibrad leh oo waxa weeyaan aqoon fiican leh oo ay soo xulaan guddida dhaqaalaha miisaaniyadda iyo ganacsiga waxaan halkaa ku dhaafayaa qodobka 7aad waxaan tegayaa qodobka 10aad guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sida inaka baadaynu nahay mudanayaal marka xiisaaniyadda laynaga qaadayo inooga qaadayaan 2 meelood oo 3 meelood waxa weeye waxaan soo jeedinaya inaynu qodobkaas sidiisa ku dayno 2 meelood oo 3 dalool oo 2 meelood haddii kale golaheennan oo shaqo weyn qarankeenna oo aynu ognahay xaaladiisu maanta maaragta halkay marayso inaan aqoonsahay shaqo weyn laynaga sugayo golaheen wuxuu gelayaa ila meerayso oo marba waxa weeyaan guddida rida shirgudoonka rida waxaa iyo buuqaama ku jireen markaa taasi ayaan jecelahay aniga fikirkayga qodobka 14aad xuquuqda mudanayaasha golaha mushaharka iyo gunnadu waxay ka bilaabmaysaa maalinta maxkamadda sare ku dhawaaqdo maaragtay go-aanka gabadambaysta waxaan aaminsanahay inay maqnaan karaan xubno inuu maqan yahay xubintaasi maqan ee la dhaarin waxa weeye weli shaqo uma hayo macnihii qaranka haddii maalinta maxkamadda ay ku dhawaaqdo la yidhaa waxay noqonaysaa in isaga oo shaqo qaban mushahar iyo gunno qaato aan xaq u lahayn anu waxaan aaminsanahay in mudanayaasha waxa weeye qodobkaasi la dhigo mudanayaasha golaha xuquuqda mushaharka iyo gunnada waxay bilaabmaysaa maalinta maxkamadda sare dhaariso mudanu goobjoog ah markaas xuquuqdiisu insha Allah bilaabmaysaa qodobka 16aad ka xaadiriska madaafurka golaha fadhiyada golaha waa xagga waqtiga walaalkii Cabdinaasir qodax baalka aad ugu celceliyay waan taageersanahay
ولا نصاد ورتي واحد كل شهر قادنا إلى وقت وياه كلها نسون نقطة كلا بركيسان كلا وحويا الوقت جيس ومدة وفايدية إنك قادنا إلى حديث رسول كنا صلى الله عليه وسلم اللهم بارك أمتي في بكورها إن نسوق الله إن نحن نبادنا إن تضمد الشقاء بلا وجه وحويا هينون نقولنا كلا يا شكل يا قرنك ينستيشنا الواوين قدوة حسن هيكون أيضا إن نقولنا أيان أنا تاجر سنة حاجة وقتك مدنا مقنعة ولما عدا حلقة المشغلة بلا بين أكاين العدية فرسات كانوا قاعد هذا ينشعلها إن حاجة وقتك مدنا مقنعة بالطار صدق معلومات ورقة هي اللوبر يدنينا يا كوغران أنا وحنا مسنها نكا إسكام مقنعة ما يمكن يعلم دارلان إلا قروا ورقة دنينا وأي وحويا تايم أيه كل شهر قادنا هدي إسكام مقنعتي عذر دارلان لو حين قلنا إسا تو وحويا مشاركة محل عشان يصير الله سبحانه إلهي النبي سبحانه وتعالى وحده ألم يعلم بأن الله يرى إلهي ميون إذن أركي مركي نسكا مقنعنا إنه وحلينا مقنعنا مدانا مقنعنا تضبع الشوء أو تلتيل اسكحيقا بشيء أما اسكحيقا أما سي تلتيل أو مقنعنا كنا ذا أيها لك قوينيا كنا ذا لكن وحنا بسنة مدانا سي كنا ذا الله لك قوينيا وأي وقتها أمدا كيبيني أيو إسكا مقنعي تضبع شو تلتيلا إساقون عذر دار أنو لهين وضانو وحنا مسكرا ومقنع كرا لكن وين سو شيء قفك إسكا مقنعا دي وحوية مشاركيني محل عشانه لطين إسكا مقنعنا تضبع شو مركاوين جناحة آد لهم بديا وحن كدر يا قضب كنحي ضمنات قضب كا لحي لباتنات قضب كاسي ومضاني غاسي ومضاني حرسي ولا القيقين ومضاني شرفاني أو يدي مدن على قدر مروين أما مرو ويمنيان أنا وحنا بسنعين وبنتي والله بيديك لكن كلمة قيمة بدن أو سنة يسا أو معنيه بيهاي ولا الكي قيمة بدن جعل هاي شرفان مركز قفل كل هاي كلمة نقول يسا ولا الكي هنوصل توصل إنه هم وين هاي كلمة داسي أو كوبسانيسا ومعناه بيهاي هونو ونبتقليو هونو والسلام ويان إلا إذا قدومية هونو قدومية حتى هونو وحويان إنتينا دو وحويان هونو قدوميسين ونيسا مركا كلمة دا هونو وحويان كلمة قيمة بدن وسلامة وحندو دا وقت لقى هذا ولا أيام نجيس ولا نياش من هنا ولا سوقرين والله ده كان قلبيتك يحيى فديه يا أنك كل يوم مقادنا تور هنا مقادنا إذا هذا صاحب ضي مركا كمدة هو إنه وين وقالوا إنه قاطع سي معناه إنه قمر إنه كل يوم تور يباس والله دي واحد يسكبر هذا إن شاء الله باي وصيب هذا يا قضبك يعني كوبي صدنا ولا كي إبراهيم أكو تاجر سنة هاي كل يوم مدحوينه وتوصل المدحوينه قرنك وينشعلنا هاي يينا نشتاق وانا مسنة علماء وحي سوتش دين يرجع كلامه أنا قلت كي بابي كورين أخليه ترينا هذا لو يستاق وحويا تاسي شيء بنوار كي لكن وحنا مسنة مدحوينه وتشعلها هاي إن السكة لو يكسبس كره يسوون السلام قاعد تاجي إن كنا ندهنه هو نسود ومركز صقله وحويا وقلنا وبدن أم باين صعب تمر كسر وينه يسوي مرت شرف تكله يا إنه ما نسأ وحقاقنا يا قلب قلب كتطبيع فتنات قاب نسبات كديهاسات waxay iska dhex tooranayaan qablaha gudahoosaadka gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka aan waxaan aaminsanahay halkaasi waxbaa ku jira inaynu awooddaasi siino gudoomiyaha sida uu soo magacaabayo xogayaha guud inuu magacaabo gudiyada gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka baynu gudoomiyaha golaha magacaabo ayaan waafaqsanahay
qodobka koob iyo lixdanaad iyo laba iyo lixdanaad waxaad moodaa guddida qodobka wuxuu odhanaya guddida ilaalinta iyo daryeelka hantida qaranka. qodobka laba iyo lixdanaad wuxuu odhanaya guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga. term of reference ama shaqada ay qaabanayaan labadaa guddi seerayaashooda aysa soo gelaya waxa weeyaan si seeraha aynu mudayno guddida waxaan jecelahay in laga dhigo guddida dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga ilaalinta iyo daryeelka hantida qaranka oo waxa weeye term of reference siduu sheegay walaalkay guddida dhaqaalaha la xoojiyo lahaa marka la isku daro guddi xoogan bay noqonaysaa maaragtay labadaa guddi marka labadaa guddi la isku daro ayaan soo jeedinayaa. waxaan kaloo halkan doonayaa inaan ka sheego guddi haasoonyadoo dhan kolley toole shaqooyinka u qoran ee xeer hoosaadkeena ku qoran inay guddi waliba xoojiso waxay u aragto muhiim xeer hoosaadka lagu daro oo waxa weeyaan marka guddiga la sameeyo weeyaan oo guddiyaduna ay soo gudbiyaan waxay doonayaan inay qabtaan waayo waxay doonayaan qaranka inaynu u shaqayno oo waxa weeye term of reference-ka guddiyadu qabanayaan aad badnaato. qodob baan anu ku darayaa qodobada xoreysaadka mushaarka iyo gunnooyinka halkan aynu ka qaadanaynaa waa kafaaf. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku duxaystay ilaahu ehelkayga iyo anigaba igu arsaaq wax igu filan. waxaan aaminsanahay halkan mushaarka iyo gunnadaan ka qaadanaynaa amba waxa weeye qarankeenu ciddii ugu badnayd inay tahay oo cayiman way nagu filan tahay. waxaan doonayaa si aynaan mudanayaashu qoorta u taagin oo ina meel dheer wax uga ara waxaan doonayaa qarankeenna oo waxa weeyaan marka la idhaa mandaqadda ama regionka aan ku naalno waxa weeyaan xaaladda amni iyo dhaqaale aan wanaagsanayn oo had iyo jeer dhici karto maaragtay in la ismuquuniyo xoog la isu muquuniyo. gobolkan dalkeenna waxaynu nahay dalka ugu tira yar xagga populationka. jabuuti oo ay awood kala ilaaliso ayay naga tira yar. anu waxaan doonayaa si aynu sunno fiican oo qudba xasan u noqono golaheenna in xeer hoosaadka waajib laga dhigo qodob in mudane kaste ama hubno kastoo halkan fadhiyaa oo saddexaas haw yeesho maadaama mushaarkiisu ku filan yahay si aynu tusaale ugu noqono bayac mushtarkeenna iyo dadka kale ee dhaqaalaha haysta haddii lahayna dhulka iyo si aynu taranta ku xoojina insha allah. waxaan halkan sidoo kale waa soo jeedin waxa weeyaan tarantaynu badinaynaa. waxaan kaloo doonayaa marka waqti badan la fadhiyo halkani rajigu waa cad yahay leerkaan isku shidnay waa cad yihiin waxoogaa in amba rajiga laga yara bedelo oo casaan iyo wax isuukeen dardaro amba leerka marka la shido waa layra caddaanaya sidaan guddoomiyaasha guddoonku u eegayno inuu gudbadaan dhegaysanayno waa layra dabaqaya markaa baltaan xalaa loo helo. ugu dambayn anigu waxaan qabaa shirguddoonku sidaa ay u fadhiyaan inay u fadhiyaan laakiin si ay u dareemaan comfort shirguddoonkeedu in jaranjaradaa kor loo qaado miiska la ballaadhiyo ay kala yara nafisaan insha allah. taasna waa soo jeedinayaa. dhegaysiga waad ku mahadsantihiin kuuna yar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.